Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan idinka raaligelinayaa muddadii aanan waxba soo gelin janaalka waxaanan ku mashquulsanaa arrimo la xidhiidha isla isaga un. Maanta waxaynu bilaabi doonaa xalqado isugu jira xikmado, meed iyo madadaalin. Xalqadanna waa furka xalqadaheenan. Sheekada maanta ee xikmada badanna waxa ay ku saabsan tahay nin la odhan jiray Cubaada oo garaacay ama dilay imaamkii masjid uu ku tukan jiray. Iyo sababta uu u garaacay, bal aynu isla eegno sheekadan aadka u xiisaha badan. ninkan magaciisu yahay Cubaada waxa uu noolaa waqtigii dowladdii Cabbaasiyadu ay ka arriminaysay dalweynaha Islaamka. Waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah Cubaada uu garaacay imaamkii masjidka. Warkii Cubaadana waxa uu gaadhay amiirkii xilligaas. Markii loo keenay amiirkii waxa uu ku yidhi laba midun baa kuu bannaan, inaad ninka waxa aad ku dishay ii sheegtid iyo inaan ku ciqaabo. ninkii Cubaada ahaana waxa uu ku jawaabay, amiir, ninkan imaamka ahi salaad subax ayuuna tujinayay. Markii uu dhammeeyey faatixadii waxa uu bilaabay suuradda albaqra. waxaan is yidhi aayaadka u horreeya ayuu idinku tujinayaa, laakiin ma uusan samayn. waxa uu waday suuraddii ilaa cadceeddii inay soo baxda ay ku dhowaatay. kadib wuu rukuucay. ragcaddii labaadna markii loo kacay waxa aan islahaa tii hore ayuu dheereeyey, tan uu soo gaabinayaa. sidoo kale tanna ma uusan samayn ee waxa uu dabada ka galay Aali Cimraan. waxa uu wadaba markii uu dhammeeyey ee uu rukuucay ayuunbuu aadir inta iska soo jeestay iska yidhi, wardadow salaadiinii ku celiya bilaaweysan ahaaye. sidaa awgeed ayaan amiir ninkan u qaraacay. waxaa sidoo kale jirtay dhacdo iyana aad u qosol badan oo dhex martay gabayaagii caanka ahaa ee loo yaqaanay Bashaar binu Bur iyo nin rabay inuu ka xaraabaysto. waxa uu ku yidhi isagoo la hadlaya Bashaar, war Bashaar, ilaahay dadka indhaha kama qaado, ilaa hadduu ka qaadana waxa uu ugu bedelaa laba midun, inuu caqli badnaado ama inuu xifdi badnaado. ee adiga ilaahay muxuu kuugu bedelay? Bashaar waxa uu ugu jawaabay isagoo aan isdhibin, ilaahay waxa uu igu bedelay inaan arag dadka sidaadoo kale ah. intaas ayay ku eegtay xalqadeena maanta daawadayaal. tanta ku xigtana inta aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.